haweenka midii ugu qorxaanayday warqadan waxa ku qoran inaan ku aqriyo lama baahnay waxaan ahay hore ee uga dhagsanad waan ogtahay laakiin adiga ma ogid haddaan ammaantaadu u istaaga afkayga marnaba inaysan istaagayna uusan isqabanaynin raggu dooqa kama wada sinnahay balse dumarka midaan ka dooqdon ka doorto waa adiga waqti walba waxaan jeclahay inaad ila saan qaado saanta meeshaan dhigay aad digto dadka qaar kelmadaha ugu hadasho kaftan iyo ciyaar ay u arkaan dadka qaarna waxay u arkaan iska balse aniga xaggayga ku weyn tahay waa iga dhab daaranku mar haddada dhinacayga joogin dhimashan ku dhawaadaa dumarku waad ka duwan tahay runtii qosolka ayaad ku qurux badan tahay khaasatan markaad bishimaha kala qaado mararka qaar waxaan ismoodaa inaan ahay ruux gubanaya misna roob ka yimid oo ololka ka baxaya qabowa markaa ma fududayn jecelkaad ugu beertay haddii aan ku fikir lahaa inaan kaa fogaadana naftaana iga saamixintaada bis waxaan sugaa nolosheeda inaasaan u iftiimiso dhab ahaan jecelkan kuu qabo aniga dhalinta maanta joogta dhinacooda kama helaysid dhabta waxay taa kuu qeexeen